qarax xooggan ayaa maanta ka dhacay deegaanka xaarxaar. qaraxa oo ahaa miinada nooca dhulka lagu aaso ayaa waxaa maanta ku qabsaday gaari ay saarnaayeen dad shacab ahaa. deegaanka xaarxaar oo qiyaastii 3 kilomitir dhinaca waqooyi kaga beegan deegaanka qaayib ee galguduud, waxaana ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac ah. gaariga oo ahaa nooca loo yaqaano saaruuf ayaa ka yimid dhinaca magaalada Cadaado, waxaana intaa la xaqiijiyey ku geeriyooday 1 qof, halka mid kale uu ku dhaawacmay, kuwaas oo dhammaantood ahaa dadkii gaariga saarnaa. wararka ayaa waxay intaasi ku darayaan in ciidamo ka tirsan laamaha amniga galguduud iyo dadweynaha deegaanka xaarxaar ay u gurmadeen dadkii ku waxyeeloobay qaraxa, kuwaas oo la geeyey xarumo caafimaad oo ku yaala deegaanka. saraakiil ka tirsan laamaha amniga galguduud ayaa ku eedeeyey inay qaraxaasi waddada u aaseen ururka Al-Shabaab, iyada oo ay xusid mudan tahay in dhowr jeer waddada xiriirista deegaanka xaarxaar iyo magaalada Cadaado uu qarax ka qabsaday gawaari ay saarnaayeen dad shacab ahaa. shalay ayay ahayd markii miino ay kula qaraxday gaari ay saarnaayeen dad shacab ahaa xilli uu marayay inta u dhaxaysa deegaanka Ceeldheere iyo magaalada Dhuusamareeb, waxaana ku dhaawacmay 2 qof oo gaariga saarnaa. waddooyinka deegaanada si ay dadka shacabka u kala gooshaan ayaa noqday muddadan u dambeysay kuwa khatartooda wata, iyaga oo dadku walwal iyo walaac ka muujiyey safaradan gaagaaban ee isku xira deegaanadan dariska ahaa. maalinba maalinka ka dambaysa ay qaraxyada iyo miinooyinka dhulka lagu aasayo ay ku soo badanayaan deegaanadaasi, iyaga oo laamaha amniga ay had iyo habeenba la daalaadhacaan sidii ay uga sifayn lahaayeen ururka Al-Shabaab oo maalin walba qarax ka geysta gudaha deegaanadaasi.